guud ahaanba Somaliland waxaa ka jira abaaro baahsan kuwaas oo aad u saameeyay gobolada bari khaasatan gobolka Sool haddaba waxaa khadka telefoonka ku jira Suxufi Maxamed Cawil Kawte oo ku sugan degmada Xudun ee gobolka Sool Suxufi waxaad nooga warantaa xaaladda guud ahaan gobolada bari ka jirta khaasatan gobolka Sool iyo waliba degmada Xudun aad ku sugan tahay aad bay salaamay dhamaantiin iyo shacabka dadweynaha dhageysanaya meel kasta adiga dhageysan soo wada salaamaya gobolada bariga gaar ahaan gobolka Sool waxaa ka jira abaaro xooggan kuwaas oo saameyn u geystay xoolihii iyo dunyada iyo dadkii abaar xooggan baa ka jirta guud ahaan gobolka Sool sidee bay abaartu u saameysay gobolka gobolka Sool abaartu waxay u saameysay si xawliya meel kasta oo aad boqotid ama tagtid waxa ku arkaysaa dad la daala dhacaya abaarta ama sida xoolaha kale iyo dadkuba waxaana jirta biyo yaraan aad u baahsan inkastoo dhawaan deegaanada qaarkood la gaarsiiyay biyo gooyadaha oo xambaarsan biyo nadiif ah oo dadka la gaarsiinayay iyo meelaha qaarkood xoolaha ma jiraan wax gurmado oo dhanka shacabka ah ay isu gurmadeen shacabka ku sugan degmada Xudun iyo gobolka Soolba shacabka gobolka Sool iyo dhammaan gobolada bari ay iska kaashadeen oo isku taakulayeen ma jiraan deegaanadaasna ma soo gaarin dad u taagan oo ilaa hadda taakuleen ama la garab taagan dadka masaakiinta ay abaaruhu saameeyeen oo la garab taagan ma jiraan Suxufi dhawaan waxa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo safar ku tagay gobolada bari kuwaas oo ugu kurgaliyay xaaladda abaareed ee ka jirta dalka adiguna waxa tahay suxufi si dhow ula socday safarkaas madaxweyne ku-xigeenka marka maxaad noo sheegi kartaa ma santahay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu soo gaaray gobolada bariga gaar ahaan gobolka Sool oo indheena u kurgalaya xaaladda deegaanka ka jirto iyo abaaraha sida u saameeyeen dadka wuxuu kulamo gaar ah la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo guddiga abaaraha oo shirarkaas ay wada yeesheen sidoo kale degmada Xudun buu soo gaaray wuxuu la kulmay guddiga abaaraha iyo odayaasha waxgaradka deegaanka ku dhiirigeliyay in la iska kaashado xaaladdan taagan ee abaaraha sida la wada ogsoon yahayba degmada Xudun beeladeedu aad u badan tahay oo dadka deegaanadii meelaha fog sida bay ka soo wada guureen waxay isku yimaadeen deegaanada Xudun iyo kuwa hoos yimaada halkaas oo dadweynaha ka kala yimid hawdka kale sida bariga kale iyo sida gobolada kamid ah galbeedka Somaliland oo kale waxay isugu yimaadeen deegaanada Xudun iyo kuwa hoos yimaada sida daraadeed waxa culays badan baa ka yimid xagga biyaha iyo biyo yaraanta deegaanka ka jirta taas ayaa keenaysa cadaadis aad badan oo la doonayo in laga gaashaanburto maamulka iyo shacabkuna ay sida ogaadaan ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa shacabka gobolada bari ama gobolka Soolba waxaan ugu baaqanaa in la iskaashado oo dal iyo dibad meel kasta oo la joogo sidii abaaraha saameeyay ummadda looga hortagi lahaa oo group iyo koox la isugu raaco oo dadka masaakiinta ay tabaalaysan oo loo gurmado meel kasta ay joogaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Suxufi Maxamed Cawil Kawte oo ku sugan degmada Xudun Suxufi aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtiga muhiimka aad naga qaadatay iyo waliba sidaad xogta muhiimka ah ee abaareed ee ku iyo gobolada aad ku sugan tahay aad noola wadaagtay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waa mahadsantiin